بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan bilaabi doonaa axkaamu siyaam bisha ramadaanka soo socdo waa bisha barakaysan oo qayr badan ilaahay subxaana wa tacaala bishaas ana gaarsiiyo dadkii oo ilaahay subxaana wa tacaala bisha ramadaanka u soomay ilaah naga dhigo subxaana wa tacaala يقول النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم حكوت مع حديث لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحكوت المعنى إنه قفك مسلم كلام أقوله إنه أسيق كهر مريو بش رمضان هل معلم إسلام معلم كلمة إنه أسيق الصوم لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين رسول صلى الله عليه وسلم نهي بوكت حديث كان صلى الله عليه وسلم كسو أروري إنه قفك إلا أقولين إنه أسيق أوهر مريو رمضان هل مالك دمان مثله مالك دمان إنه أسيق الصوم marka nahigaas sababka oo xikmada oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo u sheegay xadiidkan xikmadu waxa la yahay inuu asiga inuu qalbiyo bishi soonka sunnada iyo soonka waajibka inuu qalbiyo loo baahan yahay haduu aragtay ninka bishi ramadaanka markaas soonta bishi ramadaanka oo dhameystirataan kadib maalinta Eid waxa waajib korkaad inaa wax untid waa xaraam inaa soonto maalinta Eid waxa laga yaabaa maalinta Eid ka dambeeyna ku xigo in adiga bilaawdid oo 6 ayaam min Shawwal marka waa kala bixisay Ramadaan iyo sunnada dhaxdooda waxa waay marka waxa ka dhigtay in adiga cuntid wax cuntid waa maalinta Eid marka sidaas daraadis waxa la in adiga Ramadaan hormarisid hal maalin misal maalin lama ogolo لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين وقيل يعني علماء قارقوا وحدهم لأجل أن لا يصوم احتياطا وحلقيا وإن بريء رمضان يهي سلاسنا أصوم الوالدين لأن رسولك صلى الله عليه وسلم هلك المتنتعون دينتو حوا إن أدي أدكيسد معها وحوا خوفكو مسلم كهلو بهايا ومركا بشو أرقو إنو صوموا لأن رسولك صلى الله عليه وسلم لرؤيته يفتن لرؤيته ومن شهد منكم الشهر إلى فليصوم مركا intaas loo baahan yahay qofku markuu bisha arko inuu soomo inuu asiga hormariyo oo laga yaabo inuu bari Ramadaan yahay laga yaabo lama ogolo marka qofku inuu hormariyo marka xadiidku wuxuu ku tilmaamay illa rajulun kana yasuumu sawman falyasum illa rajulun waxa ku tusinaya marka aadad lahu ta'thiru lil ibadat qofku wax uu asiga caadaystay inuu sameeyo waxa laga yaabaa marmar inuu ta'thiru ibadad inuu ta'thiru ka dhigo marka waxa way qofku laga yaabaa inuu asiga maalin u sooma maalin uu dhaafaa صيام داود عليه السلام dadka qaarkood sidaas u sooma maalin uu sooma maalin uu dhaafa wuxuu markuu maalinta asiga sooma wuxuu migis maxaa loo bisha Ramadaan oo laba maalin dhiman misal maalin khasaba inuu soomo qofka oo maalin soo maalin dhaaf qofkaas oo kale uu soomi karaa qofkaas oo kale uu soomi karaa illa rajulun kana yasumu sawma falisu caadadiis inuu asiga uu soomi jiray hal maalin dhaafo hal maalin inuu soomo qofkaas oo kale soomi karaa mis waxa laga yaabaa qofku inuu isniin iyo khamiis inuu soomo wuxuu ku soo aaday marka inuu hal Ramadaan hal maalin misla maalin ka dhima inuu maalinta isniin iyo maalinta khamiis qofkaas oo kale inuu soomi karaa wuxuu مستثنى إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم مسقفك وحال يا نذير قال وحول لله عليه نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم ما أنت سنين تنصوص صعوده وحاول إله النذير كجاينا صوم وحوك هذا سنين تسمرك إنه رمضان هل مالين كلمة مثله مالين خفك أسألك إنه الصوم كره مسقف على يا رمضان أو الله في رمضان كهراء أو معلومة أسيق لجانا وصومين مركو وحوك هذا bish Ramadaan oo hal maalin minas laba maalin dhiman qofkaas oo kale waa soomi kara mis qof oo kafaara laga rabo مثلا كفارة laga yaabo كفارة القتل كفارة اليمين كفارة الجماع كفارة الحج wax kasto meelaha kafaara asiga laga rabo marka kafaaradaas inuu asigu maalmahaas inuu soomo qofkaasna oo kale waa soomi kara marka waxa la diiday qofku inuu soomo sunna mutlaqa inuu soomo sunna inuu soomo mis ihtiyatan la alla laga yaabo inuu bari Ramadaan yahay sidaas qofkaas oo kale waa loo diiday marka xadiidkan fawaa'id badan ku jira faa'id koowaad waxa way annahyu an siyam qabla Ramadaan biyawm aw yawmin rasuulku sallallahu alayhi wasallam wudido xaraam ka dhigay qofku inuu soomo Ramadaan oo hal maalin ka dhima misla maalin ee ka dhiman inuu asiga uu soomo فائدة لوات وحكوت سنة مركز قفك لو أقولها إنه رمضان هدو لو مالين كبدا يصير إنه صومه
فانت هدو صدح مالك لمن مش شم مالك لمن وصومي كرا قف كاس أكل وصومي كرا يعني أنت وحال الدنيا لو مالين مسحل مالي لكن واحد كسي بدن حدو لمية وصومي كرا قفك حفائد كلام وحكوا تسنا حديث أبو هريرة حديث ضعيف هاي ورسولك صلى الله عليه وسلم قلت المامي وله إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا وقد أنكر إمام أحمد وأنكر حديث كان حديث صح معها وقد ذكر ابن رجب في اللطائف أنه شاذ حديث أو صح معه حديث أقول حديث كان ديد أيضا لأن الرسول كحود ديد لو مالين مسحل مالين لكن واحد كسي بدن وصوم كراه مرك إذا انتصف شعبان نسكيس هذا لقاه فلا تصوموا هف صومنا حديث كسوا حديث ضعيف حديث كان أو كتثنا فإذا كان لقى فائدة سنة حديث كان وهو العادات له تأثير على العبادات قف كوح أسيق عادة استوى حلقة وإنه تأثير كليه عبادة يعني عبادة أو تأثير أو كليه نسأل الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى بش بركة سألها نقاسيو صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا مع علمتنا وزدنا علما وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.